markii uu tagay guriga hooyadii ayuu sameeyey wixii la soo faray. Waxa uuna arkay gacmaha hooyadii oo jeexjeexan, goortii ay biyaha taabtaanna ay xanuun daran dareemayso. waxaa jirtay hooyo dhaqda dharka si ay u hesho xoogaa lacag ah oo ay wiilkeeda wax ugu barto si uu u noqdo dhakhtar. muddo kadib wiilkii ayaa dhameeyay jaamacadda, waxa uuna noqday dhakhtar heer sare jooga. kolkii wiilkii uu shaqo bilaabay ayuu damcay inuu guursado, balse gabadhii uu rabay inuu guursado ayaa xojoor dhigtay wiilkii dhakhtarka ahaa. waxayna ku tiri, haddii aad i guursanayso hooyadaa aysan imaan xafladda arooskeena. wiilkii ayaa la yaabay shuruudda ay hordhigtay gabadha. wiilkii ayaa u tegay oday si uu ula tashado, wuxuuna u tegay oday ay aabihiis saaxiibo ahaayeen, ogaana qaabka lagu soo koriyey wiilkani dhakhtarka ah. wiilka dhakhtarka ahaa kolkii uu arrinta u sheegay odaygii ayaa si fudud u yidhi, u tag hooyadaa kadibna dhaq gacmaheeda, beritana ay ku soo laabo. wiilkii markii uu tagay guriga hooyadii ayuu sameeyey wixii la soo faray. waxa uuna arkay gacmaha hooyadii oo jeexjeexan, goortii ay biyaha taabtaanna ay xanuun daran dareemayso. wiilkii ayaa iska ooyey, ileen hooyadiis ayaa ku soo korisay dhar ay u dhaqdo dadka kale si ay u hesho lacag yar oo wiilkeeda wax ugu barto. wiilkii ayaa sugi waayey inuu odaygii ku laabto. kolkaas ayuu telefoonka wacay odaygii, waxa uuna ku yidhi, adeer aad ayaad u mahadsan tahay, talo fiican ayaad i siisay, waadna mahadsan tahay. wiilkii ayaa go'aansaday inuu kansalo arooska haddii aysan hooyadii kasoo qaybgalaynin. allahayow hooyooyinkeenna dembigooda dhaaf, dhammaan waalidiinteena intii dhimatayna u naxariiso yaa raxmaan. dulucda sheekada ayaa waxay tahay, qofkii aan qadarin fadliga ay hooyo leedahay ma helayo weligii wax qadariya.